صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. صوصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. صلاة قيامك سجود الله بشي صدقاتك يا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، meel kastoo aad dunida ka joogtaan, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kusoo dhowaada barnaamijkeennii daawada soonka. xalqadani waa xalqadii shanaad, waxaanan ku qaadaa dhigi doonaa biidni illaahi almawlaa jalla fii culaah shuruudu wujuubi siyaami ramadaan. ramadaanka cidda uu ku waajibay shuruuda laga doonayo ayaynu oga hadli doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. shardi horta waxaa la yidhaahdaa shay la-aantiisa shaygii loo socday uusan asaxaynin. tusaale ahaan, weysadu waxay shardi u tahay inuu qofku u tukado. idan qof weyse la-aan tukaday salaadiisu ma ansaxayso. qofka soomaya ama soonka uu ku waajibay shuruudda laga doonayo ayaynu xalqadeena ku qaadaa dhigi doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. ramadaanku sidaynu soo sheegnay waa arkaanta islaamka mid ka mid ah, wuxuuna ku waajibay ciddii laga helo shuruudan soo socota. shardiga koobaad waxaa weye alislaam. islaamnimadu waa shardiga koobaad ee qofka soomaya laga doonayo. gaalku hadduu soonka iska daayo kamaba asaxayee aakhare waa loo ciqaabi, laakiin soonkaas isagoon islaamin ma soomi karo. maxaa yeelay waman yabtagi gayra alislaami diina ayuu soo gudagelayaahoo qof walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u cibaadaysanayo waa in uu wadada uu ugu cibaadaysanayo wadadii islaamka. qof muslima qofkaasi waa inuu yahay. alislaam waa shardiga koobaad. labo, albuluuq, qaangaadh. qofkani inuu yahay qof qaangaaray. qofka aan qaangaarin, isagoon qaangaarin hadduu soomo soonku waa ka asaxaya. hadduu shuruudihii kale la yimaado waa ka asaxaya. laakiin qofka isagoon qaangaarin soonku waajib ku noqon maayo. si uu qofka soonka waajib ugu noqdo waa inuu yahay qof qaangaar ah inuu yahay wey. shardiga saddexaad waa alcaqlu. qofka inuu yahay qof caqli leh oo wax kala garanaya. alcaqlu manaatu takliif. ilaahi subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa waxaa lagu waajib yeelay oo lagu kalifay qofka wax kala garanaya. afalaa tacqiluun, afalaa taclamuun, afalaa tatafakkaruun. in badan bay qur-aanka ay ka buuxdaa. marka alcaqlu manaatu takliif. qofka hadduusan caqli lahayn oo uu majnuun yahay, rufica alqalamu can halaaثin, almajnuunu xataa yafiiqa waa ka mid ahayd. qofka saddex, ilaahi subxaanahu wa tacaala waxba kuma waajibinin, waxbana kama doonayo, mukalafiinna maba aha. kow waxaa ka mida qofka majnuunka ah ilaa uu kasoo miyirsado. marka qofkana waa qof caqli leh inuu yahay. shardiga afaraad waxaa weeye asixatu, inuu qofku yahay qof caafimaad qaba. oo qofka jiran, qofka buka, ramadaanku waajib kuma aha, maalin kaluu qadaynayaa.
إلهي سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى إلهي القرآن كيسو كيري قفك تشيرن إذا لقمت دون يصون واجبكم أها أو مركا إلهي عافمات سيو أيو صون كيسو قضينيا هدي عذر كيسو يهي mid laga kacayo ama laga bogsoonayo haddii uu cudurkiisu yahay cudur aan laga kacaynin ama cudur uu la noolaanayo ama da'ba uu la jiran yahay markaasi waxaa weeye fidye ayuu bixinayaa saan u tegi doono shardiga shanaad ee qofka in uu soomo waajib ooga dhigaya soonka waajib ooga dhigayo waa aliqaamatu inuu yahay qof degan oo aan musaafir ahayn مسافرك صونك واجبكم أها فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر سفرك ومشقة وانا دباتر رنتي قفك ودل تبيونيا دلوسن أقولين بومريا حصورت قال ميلو وحكاقت إيو ميلو سيحدو إيو النيدي سمدقنا وقطعة من النار والرفاد يكريد رنتي دين تيننا ودين دين الرحمة إلهنا سبحانه وتعالى ورؤوف بعباده وبخلقه جل جلاله marka qofka musaafirka ah uu ka daayay soonka guud ahaan oo markaad gurigaadii tagto soon ayuu yidhi salaadana inuu gaabiyo ayaa loo baneeyey qofka musaafirka ah shardiga lixaad wuxuu gaar ku yahay dumarka مسلماتك وانا الخلو من الحيض والنفاس إن أي قبضوا حيضك إيا النفاسك حيضك هو ديق عادة هي الدورة الشهرية ديق قبلها كدعة رير آدن أوردن بالولبا ديق عادة إن أيسان قبضوا أيسان قبين ويه ديق النفاسك اللو يقاننا وديق أمولاتك أو مركي هو يدو أموشه dhiigga afartanka beri iyo wixii la mid soconayo weeye labadaas qof ee dumarka ah iyagana soonka waajib kuma aha mar kale ay qadayn doonaan biidni illaahi tabaaraka wa tacaala lixdaas sharti ama lixdaas arrimood waxay sharti u yihiin ama waa qofka aan qofkii lixdaas sharti laga helo soonku waajib buu ku noqonaya idan waxaan leenahay alislaamu albuluugu alcaqlu asixatu caafimaadka aan ka wadno aliqaamatu oo qofka inuu magaaladiisii iyo deegaankiisii jooga ah alkhuluwu min alxaydi waannifaas lixdaas sharti waa shuruudu wujuubi siyaami ramadaan haddii la waayo waxaa weeye qaarna kamaba asaxaya soonka qaarna waa loo baneeyey inay afuraan ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ramadaanna gaadhsiiyo ayuha alaxibatu fillah inta aynu oga kulmi doono xalqad kale ama xalqadda lixaad waxaan idinkaga tegayaa bixifdi illaahi wa ricaayatihi wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام